Waxaanu ka hadlaynaa sida aad ula dhaqmi karto dadka xun. Bini'aadamku isku dabeecad maaha, way kala duwan yihiin. Qof walba si ayuu u arkayaa wacnaanta ama wanaagga. Marka qofna ha ku xadgudbin dabeecadiisa iyo dhaqankiisa, qofna ha ku xukumin sida uu isagu wax u arko. Badanaa bini'aadamku way kala duwan yihiin fikir ahaan, dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan intaba. Mararka qaar waxaa laga yaabaa dad badan oo aad isku dhowdihiin inaad isfahmi weydaan oo kadibna aad iskhilaaftaan. Marka waxaan ku siinayaa sida loola dhaqmo dadka xun. Marka dadka xun waa dadka aan lahayn dabciga wanaagsan iyo habdhaqanka wanaagsan. Marka waxaa jira dad badan oo habdhaqankooda uusan wanaagsanayn oo dhaqanka siday dadka ula dhaqmaan aysan wanaagsanayn. Dad waxaa jira ay ku badan tahay xanaaqa iyo waxyaabo badan oo dadku aysan jeclayn. Marka waxaan kuu sheegayaa qaab fudud aad ula dhaqmi karto dadka aan wanaagsanayn ama dadka xun. Lambarka koowaad, xad ka samayso. Sidee ayaad xad uga samaysanaysaa dadka xun? Dadka xun waxaad xad uga samaysanaysaa inaad xad ka yeelato oo adigu aadan noqon qof open ah, ama adigu aadan noqon qof mar walba ka hadla qofkaas waxyaabaha isaga u gaarka ah. Xad ka samayso. Markii aad aragto inuu qofku uusan ku fahmaynin ama in isku dhaqan ahayn ama isku dabeecad ahayn, waxaa loo baahan yahay qofkaas inaad u ilaaliso waxyaabaha uu isagu u arko inay wanaagsan yihiin ama waxyaabaha uu isagu u arko in ay tahay in sidaas loola dhaqmo. Marka waa inaad xad ka samaysataa oo aad qofka aad ku xadgudbin. Lambarka labaad, ha u sheegin fikradahaaga ama ha u sheegin sirtaada. Waayo qofka xun oo aan dhaqanka wanaagsanayn waxaa laga yaabaa inuu fikradahaaga u arkayo kuwo isaga kasoo horjeeda ama lid ku ah. Mararka qaar waxaa laga yaabaa adigoo wax wanaagsan u sheegaya ama adoo laga yaabo inaad naftiisa aad la talinaysid inuu ku arkayo inaad tahay qof asaga naftiisa kasoo horjeeda. Marka waxaan kuu sheegayaa dadka aan habdhaqanka wanaagsan lahayn ma aha kuwo fahmaya dadka caadiga ama dadka normalka ah. Marka mar walba ha la wadaagin sirtaada, fikradahaaga iyo waxyaabaha aad u aragtid inay wanaagsan yihiin. Markii aad dareento qofku inuu jecel yahay waxyaabaha isaga uu rabo in loola dhaqmo, siduu rabo loo dhaqan kadibna isaga tag. Waayo waa tan ugu fudud oo aad qofka aad ku fahmi kartid, aad ku wada socon kartaan oo aad ku wada noolaan kartaan. Badanaa waxaad arkaysaa dad badan oo maaragtay isku khilaafaya waxyaabo aan macno lahayn. Maxaa keenaysa? Waxaa keenaysa qofna wuxuu rabaa sidii wanaagsan, qofna sidii wanaagsanayd ayuu arkaa si aan wanaagsanayn. Marka waxaa jira oraah dhahaysa qofba sibuu u arkaa saxnaantii wanaagga u tixgeli siduu yahay. Marka taas waxay ku tusinaysaa inaadan dadka aad ka hor imaanin oo dadka qaar aad u aragtid inay yihiin kuwo iska caadiya aad ka socotid oo aadan u bixin. Badanaa waad arkaysaa dad badan oo kaa soo horjeeda, dad badan oo ku dhaqmaya waxyaabo aan wanaagsanayn, balse adigu aad ka saxan tahay, aad ka wanaagsan tahay. Si aad u ilaaliso isfahanka bulsheedka idin dhexeeya dadka, waa inaad sida ay iyagu u arkaan inay wanaagsan tahay, waa in aad ku tixgelisaa. Lambarka saddexaad, ha ku xadgudbin. Ha ku xadgudbin waxaan kuu leeyahay sababtoo ah adigu waxaad ka samaysatay xad. Sababtoo ah markii aad aragtay inayna isfahmaynin qofkan ama ayna isku dhaqan ahayn ayaad waxaad ka samaysatay xad. Adiguna ha ku xadgudbin khaladaadkiisa ama waxyaabaha uu isagu u arko wanaagga oo adigu ka samayso xad. Hana ku xadgudbin asaga waxyaabaha uu arko inay saxan yihiin. Waxaan filayaa inaad muuqaalkan wax badan aad ka faa'iiday. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe noo saar. Mahadsanid.